ereyga koowaad maanta baranayno waa ereyga favor, axsaan ama ixsaan. ereygan badanaa wuxuu shaqeeyaa in la dhaho do oo waxaad dhihi kartaa can you do me a favor, axsaan miyay samayn kartaa. waa erey aad loo isticmaalo waay. can you do me a favor, axsaan miyay samayn kartaa. and help me with, miigu caawin kartaa this task, hawshaan. task hawl. the circumstances, daruufuhu are not, ma aha favorable, kuwa isaacidaya, ma aha kuwa markaasi positive ah oo wanaagsan. bismillahi raxmaan raxiim. waxaan maanta sidaa xalqo kale oo ah 2 daqiiqo iyo 2 erey ka hor intaan casharka guda gelin. waxaan idinku wargelinayaa in bishan May ee sanadkan 2026 ay jiraan fasalo kale aan u bilaabayo qofkii u baahan inuu luqadiisa gaarsiiyo heeru si fiican oo saxan isugu xiri karo jumladaha Ingiriiska. markaasina ha u deemalaalina. ereyga koowaad maanta baranayno waa ereyga favor, axsaan ama ixsaan. ereygan badanaa wuxuu shaqeeyaa in la dhaho do oo waxaad dhihi kartaa can you do me a favor, axsaan miyay samayn kartaa. can you do me a favor, axsaan miyay samayn kartaa. waa erey aad loo isticmaalo waay. can you do me a favor, axsaan miyay samayn kartaa. and help me with, miigu caawin kartaa this task, hawshaan. task hawl. qof harta inuu asxaan kugu sameeyo inuu kaadimiyo leydhka ama nalalka ka hortuusa meesha ka tegin. waxaad leedahay do me a favor, axsaan ii samee. do me a favor, axsaan ii sameeyo. and turn off, iga dami. and turn off, iga dami the lights, leyrarka ama nalalka before you leave, intaana tegin ka hor. qof ama music kugu dheereeyay maxaad leedahay do me a favor, axsaan ii samee. and turn down, iga gaabi. and turn down, iga gaabi volume-ka hoos iga dhig. turn down, iga gaabi the music. it is too loud, aad bay cod dheer tahay. it is too loud, aad bay cod dheer tahay. ereyga labaad aan ka dhigano isagoo able lagu daray laakiin sameynaya macno kale oo ka duwan axsaanka. favorable waxa waaye wax ku saacidaya oo positive ku ah oo sidaa rabtay kugu socdaan. waxaa aragtay duruufo aan xilligan ku saacidaynin ama aan ku wanaagsanayn. the circumstances, daruufaha. the circumstances, daruufuhu are not, ma aha favorable, kuwa isaacidaya, ma aha kuwa markaasi positive ah oo wanaagsan. at the moment, waqti xaadirkan qofaa ku yirnay waxaas ii sameyno. the circumstances, daruufuhu are not favorable, ma aha kuwa isaacidaya, ma aha kuwa markaa ii wanaagsan. at the moment, waqti xaadirkan. xaaladdu markay soo kaato sida marka si fiican ku saacidayso maxaa leedahay the situation is more favorable. the situation is more favorable now. hadda aad bay ii saacidaysayo waa mid aad iigu wanaagsan. aan ku dare erey kale waxaa jira la dhaho favoritism, eexda la sameeyo dadka marka loo kala eexdo ayaa la dhahaa favoritism. qof aragtay qof kale uu eexanayo that's favoritism, taas eex waaye, kala eexasho waaye, dad loo kala eexanayo la dhahaa favoritism. waxaa tiri the manager, ninkii maamulaha ahaa was accused of, waxaa lagu eedeeyey was accused of, waxaa lagu eedeeyey favoritism, eex ayaa lagu eedeeyey. when he promoted, markuu dilacsiiyey. when he promoted, markuu dilacsiiyey his friend, saaxiibkiisa. instead of, bedelkii. instead of, bedelkii a more qualified employee. employee waa shaqaalo, more qualified waa qof shaqadiisa cilmi u leh oo u tababaran. ereygan favoritism dad loo kala eexdo waaye laakiin waxaa jira erey kale la dhaho nepotism oo ah qaraabakiil. isagu waa ka duwan yahay. kan waxaa waaye xubnaha qoyska iyo keliya qaraabadaada hoose inaad shaqooyinka siiso ama wax u qabato. kaasi waxaa la dhahaa nepotism, qaraabakiil. the CEO, agaasimaha guud was criticized, waxaa lagu cambaareeyey. the CEO oo ah maamulka guud ama agaasimaha guud waxay badanaa kasoo gaabiyaan chief executive officer, sargaalkii howlfulinta u sarreeyay waaye marka ama xafiisayaha u sarreeya shirkadda waaye. the CEO, agaasimaha guud was criticized, waxaa lagu cambaareeyey oo lagu dhaliilay. criticized waa la cambaareeyey. for waxaa lagu cambaareeyey ama lagu dhaliilay nepotism, eex inuu sameeyey. after, kadib. hiring, markuu shaqaalaysiiyey. hiring, shaqaalaysiin markuu sameeyey shaqaalaysiinayo markaasi several, dhowr ka mid ah. several, dhowr ka mid ah of his relatives, qaraabadiisa. kiimi maanta oo ka hadlayay 3 erey oo isdhalay laakiin macno kala duwan lahaa. intaan ku soo afmeeraya inta la gaari casharka xiga wabilaahi
towfiiq.